kusoo dhawow channelkayga Nahyan Cooking. waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan, isqurxin iyo waxyaabo kale badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta kusoo dhawaada channelkayga Nahyan Cooking. channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro, beelkan on ka dhigo si aad u noqotid daawada ugu horeeyo. sidoo kale video ii share garee ehelka asxaabtaada la wadaag. mahadsanid. waxaan sameysanaynaa inta waxaan ku haystaa koob saliid ah, intana waxaan ku haystaa 2 qaando dhega yara aan soo tumay, intana waxaan ku haystaa xabad rashaad waaye kan. xabad rashaadka biyaan kusoo shubtay, digsiyan kusoo shubtay, kadib biyo kusoo shubay. tan weelka ku jirta idin tusaay, ma fahanteen? waa soo diyaarsaday. laakiin 2 qaando oo xabad rashaad ah iyo 2 galaas biyo meeshan kusoo shubtay. digsigan dabkan saari doonaa ila arki doontaan. intana waxaan ku haystaa digsi kale, saliidan ku karsanaynaa. koob saliida inta kusoo shubtay, koob saliidan kusoo shubtay meeshan. waxaan sameynayaa, waxaan kusoo darayaa dhega yaraha ani waa soo tumay. 2 qaado waaye dhega yaraha, 2 qaado dhega yaro waaye. waa isku qasayaa, kadib dabkan saari doonaa saliida dabkan soo saari doonaa iyadana. waa kan waa soo saaray asxaabta, kan xabad rashaadka waaye. dabkan soo saaray saliidana waa tan dabka soo saaray iyadana. saliida dab aad u yar ku karinaya, dab badan uma baahan. u jeedaan dab yar aan ku karinaya. saliida dabka u dheereysid way gubanaysaa. marka asxaabta waa kana saliida way noo soo karaysaa, ku soo laabanay. saliida 2 mar markay soo rogmato waa ka qaadayaa. zaid inay u karkarto lama rabo. haday zaid u karkarto nafaqadii uga baahneed way ka dhimanaysaa. xabad rashaadkana waa kana way saaran tahay, wali ma soo karin. marka ayadaba saliida way ka adag tahay. saliida diyaar waaye, hadda ka qaadaynaa asxaabta. saliida waa diyaar, waa ka qaadaynaa. xabad rashaadka waa kan way karkaraysaa sida u jeedaan. hanoo soo karto waa ku soo laaban doonaa. saliidan hanoo soo qabowdo, markay soo qabowdo miirayna insha Allah. waa miiri doonaa. weelan soo qaatay iyo shaandha miir, waa u jeedaan waa miiraya. saliida waa miiraya, waa aragtaan waa miiri saliida. maasha Allah, tabaaraka raxmaan. sidaasay kusoo baxday saliidii cadeed. haday wayda ahayd haddana brown ay noqotay. koobkan ku shubayaa si fiican ugu aragtaan. koobkan ku soo shubay, waa u jeedaan saliidii saas isku bedeshay. saliida ani aan isticmaalay sunflower oil waaye, laakiin saliid kasto aa haysatid waa isticmaali kartaa. saliid kasta, saliida oo zeytuunka, qumbaha, mid kasta isticmaali kartaa aa haysatid. xabad rashaadka ku soo laabanay sida aragtaan. waa qasayaa wali waaye, wali ma bislaanin. xabad rashaadka wali way noo karaysaa, way karaysaa. hadda way dhowdahay, mar dhow waa ka qaadayaa dabka. waa u jeedaan waa ka qaadayaa dabka. waa ka soo qaaday asxaabta, waa miirayaa. xabad rashaadka marka saas u karisid inta kulusha inaa miirtid waaye. haddii aad dhigtid jeelka iyo xabad rashaadka isku dhigayaan, hodhow ma miirmayso. marka inaa hadda miirtid waa inta saas u kulul yahay inaa miirtid waaye. waa miirayaa hadda sida u jeedaan. galaaskaas isku dhaxdhaaya. jeelka dhaqsi ma soo baxaayo. xabad rashaadka iyo jeelka isku dhigay, marka tartiib inaa uga bixisid waaye. jeelkan ka soo baxsanaynaa. marka wax yar jeela ka soo baxayo. 2 galaas biyo iyo 2 qaando oo xabad rashaad isku soo kariyay. laakiin jeelka ku soo baxayo wax yar u noqonaya. u jeedaan wax yar jeela noo soo baxay. waxaan ku soo darsanaynaa saliid coconut oil waaye ama saliid qumbo. saliid qumbo waaye. marka wax yar ku soo darsanaynaa, kadib waa isku qasaynaa. waa isku qasayaa, diyaar waaye jeelka. jeelkan isbuuciba mar ama 2 mar sameysanaysaa. timaha salka ka marine xoogaa marka ku joogtidna waa iska dhaqaysaa.
adiga ugu yaraan 1 saac inaad ku joogtida fiican marka xoogaa ku joogtid shaambaa ku dhaqaysaa inay fahanteen rajaynaya waxyar markaa ku joogtid 1 saac 2 saac 3 saac inta aad ku joogi kartid ku joog kadib shaamba iskaga dhaq timahana salka ka mari timaha ay ku bixinaysaa wax kasto jeel lehna timaha u fiican yihiin sida aloe vera xabadurashaadka flaxseedka waxyaabo badan oo jeel ah jiro ka faa'iideysta insha Allah saliidana waatana u jeedaan saliidana isbuuciba mar ama 2 mar sameeysanay timahana salka ka marinaysaa hadii oo shiidi kartid dhageyraha asoo ku shiidan waxa sameynaysaa baaquli saliid ku shubaysaa iyo dhageyraha isku daraysaa digsiga biyo dabka la saaraysaa kadib baaquliga ku dhaxridaysaa direct uma saaraysid laakiin ani koronto ma haysti marka ma shiidin waan tumay marka direct dabka u saaray hadii uu powder ku yahay oo ku shiidan yahay saas sameynaysaa saliida iyo dhageyraha baaquliga isku shubaysaa kadib digsi biyo la saartaa ku dhaxridaysaa inay fahanteen rajaynaya saliidana weegiiba mar ama 2 mar sameeysanay isbuuciba mar ama 2 mar timaha meelaha ka babbanaan dadka bidaarta qabo kale meelaha timaha ka tageen sidoo kale timaha oo kalarka ka tageen kalarka u soo celinaysa saliidan timaha brown ka noqday timaha cirada caanood ma laha cirada gasho kale kalarka timaha way ku soo celinaysaa timo madow qurux badan kaaga dhigaysaa saliidan ka faa'iideysta ayadana sidoo kale timaha isku dhigdhigo kale way kala bixinaysaa timahana way ku bixinaysaa ma sha Allah ka faa'iideysta saliidan ayadana timaha quruxay kaaga dhigaysaa ma sha Allah isbuuciba mar ama 2 mar sameeysa ayadana insha Allah saas amal leh u sameynaysaa sida idin tusay 2 qaado oo dhageyraha shiidan ama tuman iyo koob saliid ah isku kariyay ani marka jeelkan sidoo kale weegiiba mar ama 2 mar sida hadda idin tusay leh u sameeysanaysan wax dhib badan ma ahan ka faa'iideysta walaalay qaaliga alaabtan timaha aad ugu fiican tahay ma sha Allah tijaabiyo weegiiba mar 2 mar sameeysta insha Allah assalaamu calaykum